kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijyadeena imtixaanaha ah oon kaga hadli jirnay dadka Soomaalida dhexdeeda magaca ku leh aan ku eegi doona caaway xildhibaanada Koongareeska Mareykanka ka tirsan ee Ilhaan Cumar oo la sheegay in ay kala tageen ninkii gaalka ahaa ay dhawaan isguursadeen isla markaana ay labadoodii kala tageen kadib markii ay Axmed Xirsi ay horay u dirtay qadka nuga xiratay oo ay 3 caruur u dhashay xildhibaanada Ilhaan Cumar balse daawada inta aan ugu dagelin barnaamijka oo faahfaahsan halkani waa Masaali Media fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saaro calaamada gambalelkana ha ilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadan ku baahin halka aan gudagalay barnaamijkayga xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa la sheegay inay kala tageen nin ay horay isku guursadeen kadib markii ay Ilhaan Cumar xiriirka u jartay ilmihiina ay ka qaadatay Axmed Xirsi oo ay isla joogeen muddo ku siman 35 sano oo ay isu guursadeen wadanka Mareykanka xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa la sheegay in ay kala tageen ninkan gaalka ah oo ay isu guursadeen sanadkii 2019 markii ay kala tageen ama uu furay ninka lagu magacaabo Axmed Xirsi oo sidoo kale uu ku furay markii ay Ilhaan Cumar ka soo dhex muuqatay kuwa loo yaqaano qaniisiinta isla markaana ay taageertay arintaas oo Axmed Xirsi uga digay Ilhaan Cumar maadaama ay tahay qof muslima balse ay ka biga diiday iyadoo ilaashanaysa xilkeeda iyo dadka doortay intaba xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa horay u taageertay dadka isku jinsiga ah ama loo yaqaan gayga ee isku galmooda ee rag iyo dumar intuba leh ee isku jinsiga ah Axmed Xirsi ayaa markaa kadib furay Ilhaan Cumar oo ka saaray noloshiisa oo dhan balse Axmed Xirsi ayaa isbuucii la soo dhaafay ku guursaday magaalada Muqdisho gabar ka soo jeeda dadka dega magaalada Muqdisho isla markaana laga arkay isagoo muuqaalkaasi baraha bulshada qabsaday haddaba Ilhaan Cumar oo arintaasi aada uga naxday ayaa isku dayaysa inay mar kale dib u hanato saygeedii hore Axmed Xirsi kadib markii uu dhawaan guursaday war soo baxay ayaa sheegaya in xildhibaanad Ilhaan Cumar ay isfureen ninkii ay isguursadeen horaantii sanadkan 2019 isla markaana ay labadoodii kala iroobeen iyadoo hadda barooranayso xildhibaanad Ilhaan Cumar oo dib u baadi goobaysa saygeedii ay inta muddada ah kala maqnaayeen isla markaana ay kala tageen haddaba shabakada Masaali Media ayaa isku dayday inay wax ka weydiiso dad si aad uga agdhow Ilhaan Cumar ama ku sugan wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Ohio ee ay Ilhaan Cumar iyo gobolka Minnesota labadaba ay si aad Soomaalidu ugu taageersan yihiin una codeeyaan haddaba Ilhaan Cumar ayaa loo sababeeyay in ay kala tageedani uu qarka u saaran yahay markii Axmed Xirsi uu dhawaan ku guursaday magaalada Muqdisho gabar isla markaana Ilhaan Cumar ay arintaasi si aad uga naxday iyadoo haddaba arintani ay Ilhaan Cumar ka duuleyso ay waxay isku dayaysaa inay mar kale ka qoomamayso xiriirkeedii hore iyo jacaylkeedii hore ee caruurta u haysay 3 caruurta ah haddaba Ilhaan Cumar ayaan la ogeyn sida ay ugu guuleysan doonto arintan balse dadka Soomaalida ah ee ku sugan wadanka Mareykanka ayaa inta badan ku sheegaya in xildhibaanad Ilhaan Cumar ay mar kale dadka Soomaalida weydiisanayso codkeeda sidoo kalena dadka Soomaalida ee sida aadka u taageeri jiray Ilhaan Cumar ayaa hadda kalsoonidii kala laabtay Ilhaan ayaa wajahaysa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay si aad iskaga soo horjeedaan sharciyada wadanka oo hadda ku soo rogay sida dadka soo galootiga ah oo ay Soomaalidu ku jirto isla markaana cunaqabatayn saaray in aysan qof Soomaali ah wadanka soo gali karin isla markaana dadka qaxootiga ay arintaasi si aad u saameysay Ilhaan Cumar ayaa iyadoo arintaasi ka duuleysa sidoo kale waxay madaxweynaha Mareykanka dhowr jeer dhuunta isla galeen ayagoo sidoo kale iska soo horjeestay haddaba arintan ayaa la ogeyn sida ay Ilhaan Cumar ugu guuleysan doonto iyo inay Axmed Xirsi mar dambe dib u midoobaan halka la leeyahay Axmed Xirsi wuxuuba ka soo guuray wadanka Mareykanka isla markaana wuxuuba ka soo rartay alaabadiisa oo wuxuu soo degay Soomaaliya dib dambana inaysan isku arki doonin Ilhaan Cumar ayaa la sheegaya maadaama Axmed Xirsi uu arinta Ilhaan Cumar ku kacday ee inay taageerto dadka isku jinsiga ah ay si aad uga carooday haddaba Ilhaan Cumar ayaa laftirkeeda waxay suuragal tahay inay soo gaarto Soomaaliya isla
markaana ay la fariisato beesha uu kasoo jeedo Axmed Xirsi maadaama uu ka dhexeeyo awlaad iyo caruur intaba ay dhex yaaliin, halka Ilhaan Cumar ay sidoo kale kasoo jeedo maamulka Puntland halka Axmed Xirsina uu kasoo jeedo Galmudug. lama oga haddii arrintani ay geli doonaan beelaha Majeerteen iyo Habargidir oo ay arrintani si aada uga soo dhawaadaan, maadaama la leeyahay Axmed Xirsi waxaa gabar siiyey beelaha uu kasoo jeedo ee Habargidir ayagoo ku xumeynaya inay Ilhaan Cumar ka raacday nin qaniisa isla markaana nin gaala ay guursato, iyadoo sidoo kalena taageertay dadka isku jinsiga ah ee wadanka Mareykanka looga yaqaan gayga. madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale dadkaasi ka mamnuucay kulamada ay tagaan isla markaana u diiday inayba yimaadaan xafiiskiisa iyo aqalka cad intaba, isagoo si aada uga soo horjeeda arrintaasi. balse Ilhaan Cumar oo qof muslim ah ayaa dadka taageero u muujisay. Ilhaan Cumar ayaa ku weyday taageero badan oo dadkaasi ka mid ah Soomaalida ah ee muslimiinta ama dadka muslimiinta ay ku nool wadanka Mareykanka. haddaba Ilhaan ayaan la ogeyn sidii arrintani ugu guuleysan karto, isla markaana waxaa hadda caruurtii Ilhaan Cumar ay u dhashay Axmed Xirsi ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya isagoo soo watay ninka lagu magacaabo Axmed Xirsi oo ka dhalay caruurtan saddexda ah. Ilhaan Cumar ayaa waxay wajahaysaa caqabadii ugu badneed ee sanadkan 2019 ee sii dhammaanaya, isla markaana wadanka Mareykanka uu doorasho geli doono. sida hadda la ololeynayo xisbiga Ilhaan Cumar ay ka tirsan tahay ayaa madaxweynaha Mareykanka ka gudbiyey dacwad xilka looga qaadayo, iyadoo Ilhaan Cumar arrintan ay ka mid tahay dadka gadaalka riixaya ee taageersan in madaxweynaha xilka laga qaado. haddiise arrintani problem familiga ay ku sii socoto Ilhaan Cumar ayaa waxaa suuragal ah inaysan arrintaasba wax waqti u hayn haba yaraatee. sidoo kale Ilhaan Cumar ayaa wajahaysa caqabado badan oo uga imaanaya dadka muslimiinta iyo Soomaalida maadaama Ilhaan Cumar nin gaala guursatay taageertayna dadka isku jinsiga ah, arrintaasoo Ilhaan Cumar sumcaddii ay ku dhaxlahay dadka Soomaalida hoos u dhigtay. sidoo kalena Ilhaan Cumar ayaa lagu eedeeyay inaysan ka fiirsan hadallada qadafka ah ee kula kacaydo dadka muslimiinta ah ama sidoo kalena ay ka galiiday diinta Islaamka. Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale kooxda Yuhuudda ee loo yaqaan Jawiishka ee wadanka Mareykanka ka jira horaantii sanadkii 2018 fooda istareen ayagoo sidoo kale Ilhaan Cumar arrintaasi ay kala kulantay dhaleecayn aad u baahsan, iyadoo heerkaasi uu gaaray in loo diidaba fiisaha wadanka Israa'iil oo Ilhaan Cumar rabtay inay booqasho ku tagto magaalada caasimada looga dhigay dadka Yuhuudda ah ee madaxweynaha Mareykanka u saxiixay ee lagu magacaabo Al-Aqsa ama Masjidul Aqsa oo ku yaalo oo ah kabcadii ugu horeeyay ee dadka muslimiinta ah. haddaba daawada arrintan Ilhaan Cumar soo wajahday isbuucan ayaa soo shaacbaxday kadib markii uu dhacay meherka Axmed Xirsi oo ku sugan magaalada Muqdisho halkaana uu ku guursaday qoys cusub. balse arrintan ayaa noqotay mid dadka wadanka Mareykanka ku nool ee Soomaalida ah ay si aad uga naxeen iyo Ilhaan Cumar oo mar dambe aysan arrintani dib uga qoomamay doonto. haddaba arrimahaas iyo arrimo kale oo aad u culus ayay Ilhaan Cumar wajahaysaa iyo doorashadii Mareykanka oo qarka saaran oo Ilhaan Cumar doonaysa inay mar kale dib ugu soo laabato xisbiga ay ka tirsan tahay ee Congress-ka Mareykanka oo ay ku metelayso dadka Soomaalida ah ama dadka madowga ah ee ku dhaqan wadanka Mareykanka. Ilhaan Cumar ayaa waxay taageero xoogan ka heshay xilligii ay u tartamaysay kursigan dadka Soomaalida ah iyo dadka muslimka intaba. sidoo kalena Ilhaan Cumar ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee muslim xijaabana ee aqalka cad la gala xijaabkiisa ee ku fariista kursiga uu ku leeyahay baarlamaanka wadanka Mareykanka ee aqalka Congress-ka. Ilhaan Cumar ayaa arrintani waxay hadda u muuqataa culaysyo isbiirsaday, iyadoo sidoo kalena ay suuragal tahay in Ilhaan Cumar iscasisho maadaama madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu hore u codsaday in Ilhaan Cumar loo misaafiriyo Soomaaliya. arrimahaas iyo arrimo kale ayay Ilhaan Cumar wajahaysaa, waxaanse markasta dadka Soomaaliyeed arrintani ay ku tahay dhabarjab haddii Ilhaan Cumar laga soo musaafiriyo wadanka Mareykanka maadaama ninkii hore ay caruurtu dhashana ay kala tageen, haddana kii dambe guursato gaalka ay kala tageen. Ilhaan Cumar ayaa hadda u muuqatay mid taagan cidii ceersala, sidoo kalena aan haysan maciin iyo garab midna adana waxay taagan tahay Allah ayuu i badbaadiyo i bixi. Ilhaan Cumar ayaan la ogeyn siday arrintani u saameyn doonto dadka Soomaalida ah ee ku nool wadanka Mareykanka, isla markaana hadda madaxweynaha Mareykanka uu mooshin xilka qaadisa uu ka yaalo aqalka Congress-ka isbuuca soo socdana ay suuragal tahay in loo codeeyo ama isbuuca aan ku jirno haddaba loo codeyn doono. haddaba haddii madaxweynaha Mareykanka uu ku adkaysto in Ilhaan Cumar laga musaafiriyo wadanka Mareykanka ayaa waxay noqon doontaa arrin dhabarjab ku ah laftir Congress
Koongareeska oo Ilhaan Cumar ugu aadaneed boos aad u muhiim ah. balse daawade barnaamijkeena ayaan intaa kusoo gabagabaynaynaa. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka calaamada gambaleelka furo oo subscribe saaro muuqaalkan. haddii aad horay u daawatayna like iyo share iyo comment intaba hoos noogu reeb wixii aragti ah ood ku mahadsan tahay daawashada channelkeena. fadlan haddii aad horay subscribe u saartay muuqaalka like saaro share-na dheh. waad ku mahadsantahay daawashadaada. halka aad nagala socoteen barnaamijkana aad ka dhagaysanayseen waa shabakada caalamiga ah ee Masaal Media ee barta YouTube-ka aan ku leenahay. sidaa iyo nabadgelyo daawadayaal.